Asalaamu calaykum saaxiibayaal ugu horreyn waxaan aad idinka raali gelinay inaan halkan muuqaal soo dhigin muddo bil ah dhibaato jirta awgeed waxaa sidoo kale idiin sheegaya warbixin aad u xun oo ah inaanan sii wadi doonin musalsalka soo leefalin dhibaato iga timid awgeed oo ay tani tahay xalaqadii ugu dambeysay ee aan kasoo dhigo maanhuwada soo leefalin ma aha xalaqadii ugu dambeysay ee soo dhammaystiraysay sheekada oo dhan laakiin waa inta aan awoodo ee aan soo dhigi karo intan wixii ka dambeeya ma soo dhigi karo maadaama kombanigii soo leefalin lahaa uu istaraag dhowr jar igu qabtay oo akoonkayganna khatar geliyey sida awgeed waxaan idiin sheegay inaan sii wadi doonin soo leefalin runtii aad ayaan uga xumaa inay tani dhacdo laakiin way nagu dhacday haatan waxaan ka qaban karana ma jirto haddii aad rabtaan sheeko kale waa idiin bilaabi karaa oo maanhuwa haddii kalena sidan ayaan isku macaasalaameyn doonaa oo tani waxay noqon doontaa fiideogaygii ugu dambeeyay aan soo dhigo markaa idinkunbaa commentiga ku kala saari doona midaas dhanku codku batana waan raaci doona insha allah aynu bilaabano xalaqada maanta wuu jinjul oo arkay wejiga jimu ayaa weydiiyey haddii uu jimu fiican yahay jimuna wuxuu sheegay inuu baahan yahay waqti uu keligii ku ahaado markii ay ka tageen jimu wuxuu eegay sistamkiisa isagoo islamar ahaantaana xaqiiqsaday in dhammaan leefalkiisii ay sidoodii yihiin oo aanay dib u dhicin xitaa mindiyihiisii waxay ku jireen sistamka taasina aad ay uga yaabisay jimu isagoo islamarkaana isku diyaarinay inuu baxo ayaa waxa qolka soo galay qofkaasina wuxuu ahaa walaashii jiin ah iyadoo islamarkaana canaananaysa jimu oo ku tidhi miyaanan ku odhan hagelin godadka dhibaato ayay kuu keeni karaane balse markay aragtay isaga way yaabtay iyadoo islamarkaana isweydiisay haddii ay soo gashay qol khaldan jimuna wuxuu xaqiiqsaday inaanu walaashii garanayn maadaama uu jirhkiisii isbedelay oo aanu ahayn sidii hore isna wuxuu sheegay inuu yahay walaalkeed kadib jiina ayaa kusoo dhawaatay iyadoo islamarkaana eegaysa oo cabiraysa dherarkiisa sheegaysana haddii uu yahay walaalkeedii dhabta ahaa laakiin jimu intuu meesha kasoo dhaqaaqay ayuu sheegay inuu rabo inuu tago xafiiska ugaadhsatada kuuriya iyadna waxay weydiisay sababta kadib wuxuu ugu jawaabay inuu rabo inuu iskaga baxo ugaadhsigoo dhan oo uu ka fadhiisto shaqada ugaadhsatada intaanu bixin ka horna wuxuu sheegay inuu ku laabatay iskuulka maadaama ay soo jartay si ay isaga ugu timaado sidoo kale wuxuu eegay gabadh kale oo albaabka taagnayd isagoo islamar ahaantaana u sheegay inaanay marnaba ku fikirin inay noqoto ugaadhsade oo ay iska daysay waxbarashadeeda iyadna way yaabtay oo waxay isweydiisay sida uu jimu ku ogaaday inay rabto inay noqoto ugaadhsade kadib jimu wuxuu xidhay koofiyadiisii isagoo islamar ahaantaana xaqiiqsaday in askartiisii oo dhan aanay joogin oo u baahan yahay inuu dib u soo dhiso askartiisa oo uu soo ceshado markii uu jimu soo gaadhay xafiiska ugaadhsatada kuuriya wuxuu codsaday in dib loo tijaabiyo awooddiisa markii la tijaabiyeyna shaqaalayaashu waxay la yaabeen maadaama uu jimu yahay ugaadhsadihii koowaad ee derajada s ah ee soo muuqday labadii sanne ugu dambeysay islamar ahaantaana awooddiisa qalabka lagu tijaabinaya awoodda u tijaabin kari waayey iyagoo islamarkaana rabay inay dib ugu celiyaan tijaabada laakiin jimu wuu ka diiday isagoo islamarkaana ku yidhi waxaan rabaa inaan la kulmo guddoomiyaha ugaadhsatada kuuriya iyaguna waxay ku yidhaahdeen aan kuu kaxayna xafiiskiisa laakiin wuu ka diiday isagoo ku yidhi waan garanaya xafiisku meesha ku yaalo kadib waxay isweydiiyeen sida qof aan meeshan joogi jirin oo aan aqoon u garanayo xafiiska guddoomiyaha kadib wiishkay soo raaceen wiishka waxa la saarnaa nin lagu magacaabo kantesik islamarkaana maskaxdiisu meel kale ay ku maqnayd oo wuxuu ka fikirayay waxa uu sheegi lahaa ururka iyo sida uu maanta uga baxsan lahaa oo uu sheegi lahaa been kale si uu u qariyo awooddiisa kadib jimu ayaa hadlay isagoo islamarkaana sheegay inuu leeyahay awoodda uu isku qarin karo islamarkaana uuna u sheegin ururka oo uu ka qariyey tahansi koonaxay ayaa islamarkiiba soo saaray hubkiisii isagoo weydiiyey sida uu jimu ku ogaaday iyo cidda uu yahay islamarkaana jimu wuxuu ku yidhi dhowaan mustaqbalka qof ayaa ku iman doona kaasoo ku odhan doona u soo aargud inantayda balse haddii aad ka aqbasho midaas oo aad disho ugaadhsato aan waxba geysan ogow inaan ku soo raadin doono oo aan ku dili doono islamarkaana taansi jirhkiisii argagax ayaa soo galay isagoo dhaqaaqi kari waayey laakiin jimu keliya uu iskaga dhaqaaqay isagoo islamarkaana u dhaqaaqay dhankii xafiiska islamarkii uu jimu soo galay xafiiska wejigiisii wuu dabcay isagoo islamarkaana aad ugu farxay inuu arkay guddoomiyaha oo dhintay kadib wuxuu soo fadhiistay kursiga isagoo islamarkaana guddoomiyihii weydiiyey haddii uu garanayo sida uu sharciga u shaqeeyo maadaama markii uu tijaabada galay islamarkiiba isagoo u yimid kadib guddoomiyihii oo dareemay murugada ka muuqata wejiga jimu ayaa weydiiyey haddii uu caadi yahay jimuna wuxuu sheegay inuu caadi yahay islamarkaana wuxuu soo bandhigay heshiis isagoo ku yidhi waxaad ii ogolaataa inaan isticmaalo askartayda hadhka ee aan soo saaray inay ka qayb noqdaan godadka aan gelayo anna waxaan ku ballan qaadayaa inaan dhammaan soo afjaro dhibaatada ka jirta jasiiradda jeju islamarkaana guddoomiyihii wuu yaabay isagoo islamarkaana aad u xanaaqay oo ku yidhi ugaadhsato badan ayaa meeshaa ku dhimatay ma waxaad moodaysaa inay ciyaar tahay keliya imikaad noqotay ugaadhsatada derajadiisu tahay s islamarkaana awooddeeda ayaad aad u tusaysaa miyaa laakiin guddoomiyihii wuxuu arkay tamarta aadka u badan ee kasoo baxaysa jirhka jimu isla waqtigaa kadib wax walba waxa u dhaceen sidoodii hore ee sheekadu hore usoo xustay jimu wuxuu galay godadkii uu ku jira hawandongsu walaalkii islamarkaana wuxuu arkay isagoo badbaadiyey li junhi kadib wuxuu galay godkii kale ee casaa ee barafka badnaa sidoo kalena wuxuu la dagaalamay bahalladii casasaa ee kasoo baxay godkii ku yaalay iskuulka walaashii dhigato sidoo kale wuxuu xasuustaa isagoo ka dhigay
taas askartiisa mid ka mid ah. Ugu dambeyntiina waxaa lasoo gaadhay jasiiradda Jeju isagoo islamarkaana ka dhigay Beru mid ka mid ah askartiisii. Laakiin intan oo dhan Jin wuxuu dareensanaa inay wax qaldan yihiin ayuu dareensanaa, islamarkaana intuu aad u qayliyay ayuu ku yidhi soo bax, waan ogahay inaani waxaan run ahayn ee ay ban yihiin, markaa soo bax ayuu ku yidhi. islamarkaana adduunka ayaa burburay, hareerihiisiina waxaa kasoo muuqday system fara badan kaasoo cirka galay. fariimaha systemka soo dirayna waxay ahaayeen hal mid oo keliya, waxayna weydiinayeen haddii uu rabo inuu dib u soo bilaabo adduunka. Jinwuna wuxuu isweydiiyey cidda ka dambeyn karta waxaan, islamarkaana qofkii waxaan oo dhan ka dambeeyey ayaa soo dhaqaaqay. Jinwuna gadaashiisa ayuu eegay isagoo islamarkaana gartay qofku cidda uu yahay. waxa uu ahaa boqorkii dhimashada, isagoo islamarkaana suldaankii harkayay Ashbourne hadlay. kadib wuxuu ku yidhi, Ashbourne wuxuu yidhi waad ku noolaan kartaa adduunkan haddii aad rabto, laakiin wariyo oo keliya. Jinwu ayaa u jawaabay isagoo yidhi, ma waxaad igu leedahay ku noolow adduunkan beenta ah ee aad samaysay? anigu ma samaynayu Ashbourne ku yidhi, balse adiga ayaa u sababa waxaan dhacaya. waa dareenkaagii ahaa inaad saxdo qaladaadkii aad samaysay, iyo awoodayda oo laysku daray ayaa adduunkan abuurtay. Ashbourne ayaa yidhi isagoo jidhkiisii kolbaba isbedelayo, halkani waa dhulkayga aan dhimashada lahayn balse ah dhimashada lafteeda. waqti badan ayaan ku daawanaya ayuu yidhi, anigu waxaan ahay dhibaato, dhimasho iyo sidoo kale baqasho. anigu waxaan ahay adiga, adiguna waxaa tahay aniga. intaad dhulkayga joogtana wax walba waad samayn kartaa oo aad rabto, laakiin intaad halkan joogto oo keliya ayuunbay middaa samayn kartaa. kadib Jin wuxuu weydiiyey haddii uu ka wado in ay labadoodu haystaan awood isku mid ah. kadib Ashbourne wuxuu yidhi waqti badan ayaan sugayay inaan kulanno, laakiin Jin wuxuu weydiiyey sababta uu isaga u doortay ee uu awoodan u siiyey. Ashbourne gacantiisa ayuu kor u qaaday isagoo yidhi waan ku tusayaa bilowgii wax walba. muuqaalku wuxuu u wareegay adduunkii caadiga ahaa, halkaasoo Jin weli baraf ku xidhnaa. Thomas Andre ayaa yidhi Jin awooddiisii ma dareemayo, maxaa ku dhacay talow? adduunka oo dhan ayaa dareemayay dhimashada Jinwu. ugaadhsado kastoo meesha joogay waxay ka baqayeen suldaamada meesha kusoo hadhay, balse mar qudha ayaa tamar aad u madow ka timid dhankii Jinwu, taasoo ka yaabisay labadii suldaan. isla markiiba dhankiisa ayay u boodeen si ay u joojiyaan, balse laag ayaa laga jaray wejiga suldaankii bahalada isagoo ku dhacay suldaankii barafka. kadib labadoodu waxay ku dhaceen dhismayaashii. nin ayaa soo hor istaagay Jinwu isagoo yidhi uma soo dhowaan kartaan wiilkan inta aan halkan joogo. dhanka kale Jinwu iyo Ashbourne waxay arkeen adduun kale, halkaasoo boqorkii adduunkaasi uu sameeyey iftiin iyo madow, isagoo madowgii ka sameeyey suldaanada, iftiinkiina ka sameeyey iftiinka caqliga badan. dagaal ayaa dhex maray labada dhinac, mid aan dhammaad lahayn. kadib mid ka mid ah iftiinka caqliga badnaa ayaa weydiiyey boqorka sababta uu u caawin laayahay ee uu u daawanayo, laakiin boqorkii uma jawaabin. islamarkaana iftiinka caqliga badnaa waxay xaqiiqsadeen in boqorkoodu aanu dan ka lahayn iyaga iyo adduunkanba. waxay go'aansadeen inay boqorka dilaan si ay dagaalka usoo afjaraan. Ashbourne ayaa farta ku fiiqay hogaamiyihii iftiinka caqliga badan oo dhulka jilba joogsanaa, isagoo warmo badan jidhkiisa ku taagan yihiin. wuxuu yidhi kaasi waa aniga, waxaan moodayay inaan dhiman doono, balse awood madow ayaan helay. islamarkaana waxaan kiciyey ciidankaygii anoo la dagaalamay kuwii khiyaameeyey, laakiin markii aan qasriga boqorka kusoo noqday waxaan arkay isagii oo la dilay. markaas kadib iftiinkii caqliga badnaa waxay ku xidheen awooddii boqorka qalab, iyagoo isku magacaabay inay yihiin ruuleriska. kadib waxay bilaabeen inay suldaanada ugaadhsadaan. boqorkii giantska ee Lichia way soo qabteen iyagoo xidhay. Ashbourne wuxuu sheegay inuu mudeeyey intii soo hadhay ee suldaanada. ciidankaygu way sii bateen, awoodaydiina way sii badatay. markaana waxaa iga cabsaday suldaanadii kale, iyagoo laba ka mid ii khiyaameeyey. laakiin dagaal badan kadib mid waan dilay, halka kii kalena iga baxsaday. isla waqtigaa ciidankii kala bar waa la dilay. markaana waxaa meesha soo gaadhay rulerskii, iyagoo aan dagaal ka filayay ayaa intay soo hor istaageen ii jilba joogsaday, iyagoo ay weydiisanayay inaan cafiyo. iyagoo awood u leh inay dilaan ayaa cafisi weydiisanayay, iyagoo sheegay inaanay dagaal rabin. balse Ashbourne wuu xanaaqay isagoo weydiiyey sababta ay u dileen boqorkiisii. mid baa hadal ku soo celiyey, laakiin wejiga ayuu ka qabtay isagoo ku yidhi haddii aad rabto inaad dagaalkan joojiso soo qaad warankaasoo wadnahayga ka taag. laakiin dhammaantood intay jilba joogsadeen ayay sii baryeen oo cafis ayay sii weydiisteen. Ashbourne wuxuu yidhi waxaan qabto maan garanayn. kadib adduunka ayaan iska qariyey anigoo sugaya argusigayga. intii aan maqnaa suldaanadii badankoodii waa la daciifiyey. markii aan soo noqdayna suldaankii daraagonka ayaa joojiyey dagaal oo dhan, anna waan ku biiray iyaga. sidaasna waxaan ku bilownay inaan raadinno adduun cusub oo aan ku noolaanno. Jinwu ayaa weydiiyey haddii adduunkaasi uu yahay dhulka ay ku nool yihiin. ha ayuu Ashbourne ku yidhi. kadib waxaan burburinay adduunkii. Jinwu wuxuu weydiiyey haddii uu burburkani uu dhici doono mustaqbalka, laakiin Ashbourne wuxuu yidhi maytani hore ayay u dhacday, tiro aad badanna way dhacday, laakiin wax xasuusaa kama haysataan sababtoo ah dhulka ayaa dib loo soo bilaabay markasta oo uu burburo. rulerska ayaa aad uga xanaaqay in dhulka la burburiyey. kadib waxay isticmaaleen koobka waqtiga iyagoo dib u soo celinaya markasta oo dib u soo bilaabaya dhulka. kadib rulerskii go'aan adag ayay gaadheen, maadaama dadkani aanay awood u lahayn inay iska difaacaan suldaanada. waxay go'aansadeen inay awood siiyaan, sidaasna waxaa ku dhashay ugaasadayaasha iyo godadka. Jinwu ayaa weydiiyey haddii adduunku wax badan burburay. Ashbourne ha ayuu ku yidhi
laakiin wax badan uma hadhin ayuu ku yidhi haddii marar badan adduunku sii burburo koobka wakhtigu ma awoodi doono inuu dib u soo celiyo wakhtiga maadaama uu sii dhammaanayo kadib suldaanadii waxay la yimaadeen qorshe cusub oo ah inay dhex galaan jidhka bini'aadamka laakiin aniga iyo boqorka suldaanada jidh awooddeeda qaadi karaa ma jirin ayuu ashbon yidhi laakiin waxaa ii yimid sanamkii baalalka lahaa isagoo sheegay inuu samayn doono system uu jidhka dadka ku dhex galo laakiin dadkii ayuu raadiyey wuxuuna waayay qof awooddeeda qaadi kara kadib wuxuu soo helay adiga sidaasna waa lagugu doortay kadib jim wuxuu weydiiyey sida uu u heli karo awooddiisa ashbonna wuxuu ku yidhi waxaad noqotay aniga aniguna waxaan noqday adiga awooddeeda oo dhammaystiranna waxaad ku heli kartaa inaad systemka dhiliid garayso sidaas awgeed waxaan ku siinayaa doorasho halkan joog oo weligaa ku noolow nolol fiican ama dib u laabo oo dhibaato iyo dagaal wajah jim wuxuu ku yidhi jawaabtaydu waa sideedii anu ma joogayo adduun been ah kadib jim wuxuu weydiiyey haddii ay tani tahay markii ugu dambaysay ee ay is arki doonaan ashbon wuxuu yidhi anu waan nasan doonaa adna dhib ayaad ku noolaan doontaa markaa uma malaynaya inaan is arki doono sistamka ayaa fariimo soo diray sheegaya in jim uu awooddiisu sii badan doonto sidoo kaleta askartiisuna ay sii badan doonto kadib wuxuu jim u weydiiyey haddii uu rabo inuu sistamka tirtiro jimuna yees ayuu taabtay isagoo markaana iftiin badan meeshii soo galay muuqaalku wuxuu usoo wareegay suldaanadii oo hor taagan ninkii oo ahaa jim uu aabihiis suldaankii barafka ayaa ku yidhi iftiinka caqliga badanow maxaad u difaacaysaa suldaanka hadhka hadduu soo nabad noqdo wuu idin addoonsan doonaa raakan wuxuu yidhi wakhti ma hayno islamarkaana dagaal ayaa meeshii ka bilaabmay labadii suldaan waxay iskugu tegeen ninkii iyagoo weerar ku waalay balse isna sidoo kale u weerarayey isagoo u bannaynaya weerarkoodii wuxuu iska qabtay seeftii suldaanka barafka kadib suldaanka ayaa is yidhi afka baraf ka soo daa laakiin afka ayuu ka laagay raakan ayaa afka kala qaaday si uu u cuno ninka laakiin mindi ayuu afka ka dhex geliyey isagoo kala gooyey raakan xanuun ayuu la qayliyey kadib wuxuu yidhi waan ku googoyn doonaa laakiin tamar ayuu ka dareemay jinwu kadib sida bisad ayuu meeshii uga booday isagoo yaaban jidhkiisana dhidid ka muuqdo suldaankii barafka ayaa soo laabtay isagoo yidhi si wada jir ayaynu weerarinaa ninkan laakiin raakan wuxuu yidhi anugu kuma jira dagaalkan suldaankii barafka ayaa ku yidhi ma iminkaa dib un laabanaysaa markaan intaan oo dhan soo galnay laakiin raakan ayaa yidhi maad dareemayn tamartaas suldaankii hadhka ayaa soo laabtay ha ku sheegin abti anu dagaalkan ma gelaye naftayda waan jecelahay ayuu raakan yidhi laakiin suldaankii barafka ayaa ku yidhi miyaanad iga ballan qaadin inaad i caawin doonto raakan wuxuu ku yidhi maya niyo anuu suldaanka hadhka lama dagaalamayo kadib suldaankii barafka ayaa ku yidhi markaa ma sida fuligaad u baxsanaysaa laakiin raakan wuxuu ku yidhi adaa arki doonaa waxaan u baxsanayo kadib meesha ayuu iskaga tegay isagoo godex galay silidna wuu sii caayey isagoo jidhkiisii dhabta ahaa soo saaray ayuu meeshii oo dhan baraf ku xidhay kadib wuxuu weeraray jinwu laakiin jinwu aabihiis ayaa difaacay silid baraf aad u weyn ayuu sameeyey isagoo kusoo beegay jinwu aabihiisna wuu yaabay kadib gacantii ayaa ka dhaawacmatay iyadoo baraf kaga dhacay laakiin mar qudha indhihiisa ayay wax hormareen xawaare saa'ida ku socda askari ayuu ahaa kaasoo kor u booday kadib barafkii ayuu burburiyey beeru igris ayaa sidoo kale soo baxay isagoo difaacay jinwu aabihiis silid wuu naxay isagoo yaaban ayaa cod soo yeedhay jinwu ayaa soo baxay isagoo sheegay in aanu dib u aamini doonin saadaalinta mustaqbalka kadib wuxuu yidhi bahalkii miyuu baxsaday sidee buu u baxaa anoon amar siin silid cabsi saa'id ah ayuu dareemay isagoo niyadda iska yidhi saa'id ayuu awood badan yahay jinwu wuxuu hortaagnaa silid isagoo beeru iyo igris ag fadhiyaan kadib tamar madow ayuu soo daayey taasoo meeshii oo dhan xidhay kuuriya oo dhan ayay qabsatay tamartii madoobayd kadib adduunka oo dhan ayay xidhay islamarkaana jinwu ayaa hadlay isagoo yidhi waan ku soo helay isagoo sii jeestay silid ayaa is yidhi ka faa'iidaysay inta uu jinwu sii jeedo oo dil laakiin jinwu gacantiisii ayuu ku qabtay weerarkii silid hadal uu kasoo bixi waayey jinwu ayaa hadlay isagoo yidhi adu waad ugu dambaysaa ee sug intaan raakan kasoo dilayo dhanka kale raakan meel kayn ah ayuu kasoo muuqday isagoo raba inuu ka dhuunto jinwu laakiin cabaar kadib jinwu ayaa gadaashiisa soo istaagay raakan wuu dhaqaaqi kari waayey xitaa wuxuu awoodi waayey inuu gadaal eego kadib wuu foorarsaday isagoo dhulka madaxa u dhoweeyey cabsi awgeed kadib wuxuu yidhi suldaanka hadhkow ma rabo inaan kula dagaalamo fadlan icafi dhowaan boqorka daraagonka ayaa halkan iman doonaa isagoo soo weeraraya dhulka markaa waan ku caawin doonaa ee iska kee cafi kadib jinwu ayaa hayi ku yidhi raakan wuu farxay isagoo moodayey inuu siray jinwu laakiin jinwu wuxuu yidhi ka hor midaas waxaan rabaa inaan kaa jarto dhibkaadii geysatay maadaama 5 ka mid a cidiyaha gulaabtayda dilaaciyeen kadib raakan ayaa qayliyey isagoo yidhi suurtagal maaha ma anoo boqorka bahalada ah ayaad igu ciyaaraysaa jinwu mindi intuu soo saaray ayuu meeshii ka baaba'ay isagoo gooyey raakan gacantiisii kadib wuxuu yidhi afar yaa ii hadhay dhanka kale igris ayaa bursanayay silid halka uu beeruuna dadka daweynayey silid ayaa istaagay isagoo ku yidhi aniga hayla dagaalamin maadaamaan ku dili karo laakiin igris uma jawaabin keliya gacantiisa ayuu kor qaaday isagoo jinwu kasoo dhex baxay kadib wuxuu dhulka kusoo tuuray cidiyihii raakan isagoo yidhi
raakan wuu dhintay. Kadib Jin wuxuu sii watay hadalkiisii isagoo yidhi suldaanka daacuunka, suldaanka bahalada, suldaanka barafka, saddexdaas dhimashadoodu waxay digniin u noqon doonaan suldaanada kale. Kadib Jin mindi ayuu ku tuuray jidhka Silid baraf ayuu is yidhi soo daa, laakiin Jin ayaa afka ka qabtay isagoo mindi soo saaray kadib ku jeexay Silid. Kadib wuxuu yidhi suldaanka bahaladu wuxuu ku dhintay 4 jeer oo aan soo weeraray oo aan wax ku dhuftay jidhkiisa, adna intee in laag ayaad noolaan doontaa talow. Balse nasiib xumo Silid wuu dhintay isagoo hal mar oo wax lagu dhuftay ku dhintay. Beeru ayaa soo orday isagoo Jin u yimid. Jinna wuxuu weydiiyey meesha uu ninkii difaacayay qabtay. Beeruna wuxuu sheegay inuu baaba'ay oo uu meesha ka baxsaday. Kadib Jin mindi meesha taale oo aabihiis ka dhacday ayuu soo qaaday, isla markaana waxaan arkaynaa aabihiis oo fadhiyay meel dhisme burburay ah isagoo dhiig badan ka socdo oo qof daciif u eg. Kadib wuxuu isweydiiyey haddii ay tani tahay waxa ka dhashay inuu noqdo jidh ay rulersku soo dhex galaan. Laakiin Jin ayaa meeshii soo gaadhay isagoo ku yidhi ma waxaad moodaysay inaad iga baxsan doonto, ma mar labaad ayaad tegaysaa adigoon waxbana odhan aabo. Jin ayaa yidhi isagoo hoos u soo eegaya aabihiis. Jin aabihiis wuxuu sheegay inuu godku dhex lumay isla markaana isagoo u dhow inuu dhinto. Waxa uu yimid rulerska iyagoo ku yidhi waxaan ku siinaynaa awood, laakiin waa inaad joojisaa suldaanada, siiba ahaan suldaanka hadhka. Markii uu dhulka ku soo noqday aabihiis wuu awoodi waayey maadaama suldaanka hadhku ahaa wiilkiisa. Isla markaana rulerski ayaa dib u fikiray iyagoo ku amray inuu ilaaliyo suldaanka hadhka. Taasina waa sababtaan ku ilaaliyo ayuu yidhi. Laakiin Jin wuxuu ku yidhi maad noo xiistay, aabihiisna ha ayuu ku yidhi. Kadib uu soo kacay isagoo laabta geliyay Jin. Kadib labadoodii way ooyeen iyagoo isku mahad celinaya. Aabihiisna sidaas ayuu ku baaba'ay oo wuu dhintay. Jinna wuxuu ka ballan qaaday inuu dili doono rulerska iyo suldaanada. Maalmo kadib adduunka oo dhan ayaa ogaaday dagaalkii soo dhammaaday iyo dhibkii ka yimid. Laakiin dhibaatadu waxay bilaabmi doontaa 2 cisho kadib. Dhammaan ugaadhsatadii adduunka ayaa isugu yimid Korea iyagoo sugaya godkan weyn ee furmaya dhowaan. Iyagoo dhammaantood cirka eegaya, Jinna ugu horeeyo ayaa godkii furmay. Ciidan aad u tiro badan ayaa ka soo baxay kuwaasoo dadkii ka nixiyey, dadkiina dagaal ayay isku diyaariyeen. Laakiin Jin ayaa dhammaantood joojiyay oo ku yidhi dagaal ha gelina, kuwani waa ciidankayga. Beliyon oo ahaa hogaamiyihii ciidanka ayaa soo baxay isagoo hawada ku soo socda ayuu Jin soo hor istaagay, isla markaana jilibka ay dhulka dhigay isagoo salaamay Jin. Intii kale ciidankuna way salaameen. Jin wuxuu yidhi hadda ayuu dagaalka saxda ah bilaabmaya. Maalmo kadib adduunku wuxuu ka warwarsanaa Jin ciidankiisa badan iyagoo Jin ka cabsi qaba. Dhanka kale Jin ciidankiisa ayuu dagaalsiinayay isagoo daawanaya. Kadib Beliyon ayaa weydiiyey sababta. Jinna wuxuu ku yidhi kolleyba ma dhimanayaan markaa way u fiicantahay inay dagaalamaan. Beeru ayaa u yimid isagoo yidhi waxaan rabaa inaan la dagaalamo Beliyon. Jinna ma diidin oo wuu ka aqbalay. Labadoodii way is istaageen iyagoo dagaal bilaabay. Beliyon seeftiisa ayuu soo saaray oo kala baxbaxday. Beeruna ayuu ku qabtay isagoo ku xidhan meel, laakiin Beeru isma dhiibin oo laabta ayuu ka jeexay Beliyon. Dhanka kale Liu Shigan ayaa China soo gaadhay isla markaana wuxuu diyaar garoobayay inuu airportka ka tago, laakiin gacanyare ayaa u yimid oo ku yidhi cirka eeg. Markii uu eegayna god kale oo weyn ayaa ka soo muuqday China dusheeda. Dhanka kale meel qasri ah boqorkii daraagonka ayaa yidhi oo suldaankii hadhku miyna khiyaameeyey, halka uu gacanyarihiisana u sheegay inuu khiyaameeyey. Kadib wuxuu yidhi ciidankaygii dagaal isku diyaariya.